daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamij kooban oo ku saabsan taariikhda waxqabadka iyo waayo aragnimada shaqo ee musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal. musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal waa mid ka mid ah musharaxiinta waqtigan shaaciyay inay u tartamayaan tagada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya iyadoo uu ku talo jiro inuu noqdo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. maanta waxaan idinku yeedhay idinkoo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan inaad ila ogaataan inaan ahay musharaxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxa uu noqonayaa musharaxii ugu horeeyay abid isu soo taaga tagada madaxweynenimo ee dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada istiraatijiga ah ee Togdheer, Sool, Sanaag iyo Doolo. waana midka ugu macquulsan musharaxiinta waqtigan isu soo taagay kursiga ugu sarreeya dalka Soomaaliya marka loo eego hab deegaan lana fiiriyo dheelitirka awoodeed ee ku aadan kursiga madaxweynenimo iyo wax wada lahaanshaha ummadda Soomaaliyeed. musharax Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu u taagan yahay heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed, xasilinta nabadgelyada ee guud ahaan Soomaaliya iyo samata bixinta siyaasadda cakiran ee 30 sano ugu dambeeyay ay Soomaaliya wajahday iyo xal u helidda duruufaha adag ee waqtigan ku gadaaman guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. haddaba waa kuma musharax Bashiir Xaaji Cali Jamaal? waxaynu si kooban isu dul taagaynaa taariikh nololeedkiisa, heerkiisa wax aqooneed iyo kiisa waxbarasho. musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxa uu ku dhashay sanadii 1963 deegaanada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. sanadii 1970 waxa la geeyay magaalada Muqdisho waxaana uu halkaasi ka bilaabay milcamad quraanka. barbilowgii sanadii 1972 waxa uu barashada fasalka koobaad ka bilaabay dugsiga hoose ee Macallin Jaamac ee magaalada Muqdisho. waxaa musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal uu dugsigii hoose dhexe ka dhamaystay dugsiga hoose dhexe ee Kowda Luulyo isla magaalada Muqdisho sanadii 1980 halka 1983 waxbarashada sare ku dhamaystay dugsiga sare ee farsamada gacanta ee La Foole isla magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu musharaxu sanadii 1987 waxbarashada heerka koobaad uu ka dhameeyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, halka uu 1996 uu dhamaystay jaamacadda heerkayga labaad ee loo yaqaano Master of Education kana dhamaystay jaamacadda Ottawa ee dalka Canada. musharax madaxweyne Bashiir waxa uu sidoo kale sanadii 1997 uu dhamaystay tababarka barista luqadda Ingiriiska. dhanka kale waxa uu musharax madaxweyne Bashiir uu sanadii 2017 uu dhamaystay akademiyadda nabadda iyo bulshada ee Booliiska. musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal waxaa sanadii 2008 ilaa 2009 la siiyey shahaadada maaraynta iyo maamul wanaagga ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada, halka 2007 uu qaatay shahaadada kobcinta dhismaha bulshada qaybaheeda kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada. sidoo kale waxa uu sanadii 2008 musharax madaxweyne Bashiir uu qaatay shahaadada horumarinta iyo cadaalad falka dumarka iyo ragga ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada. shaqooyinkuu ka soo qabtay Soomaaliya musharax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali Jamaal intii u dhaxaysay sanadihii 1980 ilaa 1986 waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii tenniska dheer ee heerka koowaad ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee ka dhisnaa Muqdisho. waxa uu noqday macallin shaqo qaran sanadii 1984 isagoo ka howlgalayay deegaanka Qandala ee gobolka Bari. muddada u dhaxaysay 1988 ilaa 1989 waxa uu noqday macallin wax ka dhiga dugsiga sare ee farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho.
shaqooyinkii Kanada muddada uu ku sugnaa dalka Kanada waxa halkaasi ka soo qabtay shaqooyin kala gedisan waxa uu macalinka ahaa Ottawa muddadii u dhaxaysay sanadihii 1993 ilaa 2001 ilaa 2004 waxa uu noqday shaqaale ka howlgala wasaaradda caafimaadka Kanada ee Ottawa sidoo kale muddadii u dhaxaysay sanadihii 2006 ilaa 2007 waxa uu noqday sarkaal sare oo ka howlgala iskuulka tababarka shaqaalaha ee dawladda Kanada taariikhda dheer ee ka soo bilaabmata sanadda 1999 ilaa 2020 Bashiir wuxuu hayaa jagada xogayaha joogtada ee hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga sidoo kale murashax madaxweyne Bashiir Xaaji Cali waxa uu soo qabtay shaqooyin mutadawacnimo oo aad u tiro badan taas oo uu qabtay ummadda Soomaaliyeed sanadii 1999 waxa uu ka mid noqday aasaasayaasha hay'adda Iskeerdo muddadii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2008 Bashiir waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka taageerada shakhsiyaad ee Alberta sidoo kale murashax madaxweyne Bashiir waxa uu ahaa muddadii u dhaxaysay sanadihii 2008 ilaa 2011 sarkaal sare oo ka mid ah Alberta golaha iskaashiga caalamiga ah ee ICGC 1997 ilaa 2000 Bashiir Xaaji Cali waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka macallimiinta Soomaaliyeed ee gobolka Ottawa waxay u kalifay kadib markii aan arkay dalkii Soomaaliya oo aan meel laba u socon oo midnimadiisii iyo wadajirkiisii iyo nabadgelyadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo siyaasaddiisii intiiba murugsan yihiin waxaad la socotaa wada og tahay 30 sannadood ugu dambeeyay dalka in waxyaalo badan la isku dayay oo la damcay dib u heshiisiin dhaba in la sameeyo maamullo fara badan iyo dawlado fara badan oo kala duwan la sameeyay laakiin weli meeshii aad moodo wax la sameeyay laakiin meeshii la taagan yahay oo runtu meesha ay dhibaatada Soomaaliya meesha ay ka dhaqaaqi laadahay marna aan si dhaba loo wajin taas ay u kaliftay markaa inaan xilka madaxtinimada isu soo taago si aan wax uga bedelo jawiga maanta uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya guud ahaan Bashiir Xaaji Cali Jamaal musharaxa madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya ee 2022 waxaa jira mashaariic tiro badan oo bini'aadamnimo iyo kuwa kale oo horumarineed oo uu ka fuliyey qaybo ka mid ah geyiga Soomaalidu degto waxaana qayb ka ahaa mashaariicdaasi mashruucii caawinta qaraxa Muqdisho waa mashruucii qaraxii Shoobe ee dhacay sanadii 2017 mashruucii gurmadka macaluusha Muqdisho waa abaartii ka dhacday koonfurta dalka Soomaaliya sanadii 2018 mashruucii dadaalka gargaarka ee Gedo waa abaartii ka dhacday gobolka Gedo sanadii 2011 mashruucii qaybinta ceegaa waa cuntayaridii iyo biyala'aantii ceegaa ka dhacday sanadihii 2017 iyo 2020 mashruuca horumarinta ka soo kabashada duufaanta Puntland iyo Boorame mashruuca tababarka xirfadaha ee Boorame waa mashruucii loogu talagalay horumarinta kala duwan ee Boorame sanadihii 2006 ilaa 2008 mashruuca waxbarashada nabadda ee magaalada Burco ee sanadihii 2003 iyo 2005 iyo mashruucii dhismaha rugta loo yaqaano Burco mashruuca waxbarashada iyo dib u habaynta dugsiga hoose sare ee Buuhoodle ee sanadihii 2000 ilaa sanadii 2001 iyo dib u dhiska iskuulka hoose dhexe ee Buuhoodle isla waqtigaasi mashruuca horumarinta biyaha ceegaa 2011 iyo 2014 iyo qodistii riiga biyaha ceegaa ee isla sanadahaasi dhismihii cusbitalka ceegaa ee sanadii 2010 iyo mashaariicda fatahaadaha deegaankaasi ee isla waqtigaasi aqoon-yahan Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu haatan u hollanayaa inuu hogaamiye u noqdo shacabka Soomaalida ee uu horeba dadaalka badan ugu galay horumarintooda ee uu u hagar baxay waa musharax madaxweyne oo u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka Soomaaliya una taagan inuu ka qayb galo doorashooyinka madaxweynaha ee haatan ku soo foolle dalka Soomaaliya